السلام عليكم muuqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa qiso aad iyo aad u murug badan maalin ayaa habeenay dhimatay isbitaal ayaana la keenay si loo dhaqo kadibna meedkeedii loo asturo loo aaso markii isbitaalkii la keenay qol ayaa la geliyay ditooreesadii ayaa loo yeeray ditooreesadii markii ay timidna oo qolkii meedkii uu ku jiro ay aaday qolkii waa uu xirnaa waa ay rixday kadib ayuu u furmay markii ay gudaha u gashay ay damacday in ay meedkii dhaqdana habeenay ayay ahayd markii wajigii ay ka feeday islaantii ditooreesada ahayd waxa ay aragtay habeeneedii oo wajigeedii u madow sida dhuxushii oo kale waa hadiiba uusan madowgii ka sii darnayn dhuxusha kadib ayaa waxay sii aragtay jirkeedii oo daadanayo oo gurmayo sida dabayshii oo kale waa ay naxday ayadoo murugaysan ayay soo baxday wadaad ayay u timid waxayna u sheegtay arrinkan la yaabka leh oo murugada badan ay qabsatay wadaadkii wuxuu ku dhahay wajigeedii wuxuu saas uga madoowaaday ma aysan ahayn qof salaadii Alle tukata ilaahayna xiriir aan la yeelanin bay ahayd waxayna weydiisay sababta uu jirkeedii u daadinayay oo u gurmayay sida dabayshii oo kale sheekii baa wuxuu ku yiri waxay ahayd qof aan isxijaabin oo aan is asturin qisadan waxaa ka baranaynaa walaalayaal dumarka in ay salaada Alle tugtaan ay ku hanuunaan ayna isqaawin oo ay is xijaabaan